laakiin waxaan kaga hadlaynaa hadda fadhigan calaamadaha yaryarka ah ee adduunka ka dhici doona ee markay yimaadaana astaan iyo calaamad u ah inay qiyaamadii weyneyd soo dhowdahay kuwaasi marka waa farabadan yihiin caadatanna waxa la yiraahdaa waa wax bini aadamku arki jiray bay u badan yihiin laakiin siyaadaya oo sidii lagu yaqaanay ka kordhaya way badan yihiin waa badanayaan waa la arki jiray intooda badan shay qariib oo la yaab leh ma aha laakiin sidii lagu yaqaanay bay ka siyaadayaan ayay ka siyaadayaan kuwaas marka waa farabadan yihiin calaamaadka yaryarka ah marka la fiiriyo iyaguna saddex qaybood bay u qaybsamaan qaybi waa calaamado intay yimaadeen nebigu ka sii warramay nebiga gadaashii yimid oo dhammaaday kuwana waa calaamado soo baxay oo la arkay laakiin weli sii jiro oo sii siyaadaya kuwana waa calaamado aan weli imaanin oo la sugayo imaanshahooda saddexda qaybood baa loo qaybiyaa yacni waxa weeye calaamadaha qiyaamada calaamadahaasi marka aad bay u fara badan yihiin mana koobi karno hadda fadhigan iyo muxaadaradan kuma koobi karno laakiin inta waqtigu noo saamaxo ayaan ka soo qaadanaynaa insha allahu tacaala waxaa ka mida maalan oo calaamadda ugu horraysta lagu tilmaami karaa bicthatu nabiyi sal alla alay wasalam nebi maxamed soo saaridiisii soo diriddii la soo diray isagoo rasuul ah waxyigu u yimid malagku yacni waxa weye u keenay ilaahay hadalkiisa soo diriddii nebi maxamed calaamad iyo astaan qiyaamadu inay dhowdahay ku tusayay ahayd lianna maadaama ilaahay rusushuu soo dirayay isagu ugu dambeeyo macnaheedu waxay ku tusaysaa adduunka wax badan baa isbeddelayoo rasuulkii ugu dambeeyey hadduu kan yahay wixii isaga ka dambeeya adduunkan waxaa loo diyaarinayaa marka in la gebagabeeyo sidaana macnaha ku tusaya ama macnaha xadiidka ku tusaya waa xadiid uu nebigu sal alla alay wasalam calaamado fara badan uu ku sheegay oo maalan xadiidkii hadda aan soo sheegnay oo kaleeto anigiiyo saacadda waxaa nala soo diray annagoo sidaas oo kale ah waa kii aan soo marnay waxaa kaloo ka mid ah xadiidka cawf ibnu malikin oo nebigu uhi sal alla alay wasalam ucdud sittan bayna yaday saaca qiyaamada ka hor 6 arrimood tirsa buu nebigu uhi sal alla alay wasalam 6 arrimood oo ka soo horreeya qiyaamada tiri markaasuu nebigu wuxuu ku bilaabay sal alla alay wasalam yacni soo saaridiisii kadibna wuxuu ka dambaysiiyey 6daa arrimood waxaa ku xiga mawtii dhimashadayda buu nebi uri sal alla alay wasalam soo saaridiisiina calaamad bay ahayd dhimashadiisuna calaamad bay ahayd hadduu dhintay bimacnaa waxa weeyaan allaha tabaaraka wa tacaala wakhtigii uu adduunkan khatimi lahaa iyo noloshii dambaa soo dhowey waxaa ka mid a maalan calaamooyinkaas oo isla xadiidkaa laftiisa ku timid furashada ay muslimiintu furan doonaan baytalmaqdis ayadana calaamooyinkaasuu nebigu ku daray sal alla lay waslam xadiidkan hadda sheegaynay xadiidu sahl ibnu sacdin isaacidi xadiidka cawf ibnu malik baan dhihi lahaa ayaa macnaha uu nebigu ku sheegay sal alla lay waslam 6da arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya waxaa ka mida buu nebi uri sal alla lay wasalam fatxu bayt almaqdis ama bayt almuqadas bayt almaqdis furashadiisa baytalmaqdisna sida la ogsoon yahay waxay muslimiintu furteen sanadkii 16aad ee hijriga sanadkii 16aad ee hijriga ayay muslimiintu baytalmaqdis furteen cahdigii cumar ibnu khataab radi allahu tacaala canhu ardaah ayaa baytalmaqdis uu gacanta muslimiinta soo galay nebigu sal alla lay waslam wuu sii sheegay in lay furan doonaan oo qabsan doonaan oo gacantooda uu soo geli doono wuxuuna ku daray calaamadaha lagu garan doono qiyaamadu inay soo dhowdahay baytalmaqdis oo gacantiina soo gasha wakhtigaasaa la furtay wakhti dheer bay muslimiintu gacanta ku hayeen ilaa mar dhow muxuu ahay reer galbeedku ay yuhuudda ku wareejiyaan oo siiyaan waxaa ka mid ah calaamadaha iyaga ah oo nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas waa magaalo ku taalla filistiin waxaa ka dilaacay daacuun dad badan baabi'iyey nebiguna wuu sii sheegay sal alla lay waslam wuxuu ku sheegay 6da arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya tirsada uu yidhi waxaa ka mid ah muutaanun ya'khudu fiikum ka qucaasi alqanab buu nebi sal alla lay waslam geeri dhimasho aad u fara badan oo idin qaban doonta haddaad muslimiintiin tihiin
oo idiin qaban doonta sida cudurka qucaaska la yidhaahdo kaleeto oo adhiga ku dhaca waa cudur xoolaha ku dhaca oo markuu xoolaha ku dhaco intay sanka duuf ka sii daayaan xooluhu ay u la'anayaan si aan caadi ahayn u baaba'ayaan sidaasoo kaleeto xanuun idinku dhici doono idin baabi'in doona kaasaa ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusaya wuxuu dhacay cudurkaasi daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas wuxuuna dhacay ficlan sanadkii 18aad taariikhda hijriga ah baytulmaqdis markii la furtay 2 sano kadib ayaa waxaa ka dilaacay magaalada cumwaas la yidhaahdo daacuun baabi'iyey dad aad u fara badan oo muslimiinta ka mid ahaa ilaa 15,000 oo saxaabada u badan baa ku dhintay baa la yidhaahdaa raggii xanuunkaasi u laayay waxaa ka mid ahaa abu cubaydah ibn al-jarraax amiinu hadihi al-umma ragga waaweyn ee xanuunka u leeday muxuu ahaayay daacuunka u leeday buu ka mid ahaa intuusan dhicin buu nabigu sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xanuunkaasi dhicidiisa iyo muslimiinta uu layn doono ee baabi'in doono astaamahaasuu nabigu ku daray isagana salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamadaha qiyaamadu inay soo dhowtahay lagu garan doono xooluhu inay bataan sadaqadiina laga kaaftoomo wax qaataba la waayo dadki intay xoolihii ka bataan oo la wada dhergo in sadaqadiiba nin ka qaata ruuxii sadaqada bixinahayaba la waayo taana waxay ku sugan tahay xadiidu abi hurayra nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laa taquumu asaacatu xataa yaktura fiikum almaal fayafiida xataa yahuma raba almaali man yaqbaluhu minhu sadaqatahu yacni nebigu sal lla alay slam wuxuu yidhi qiyaamadu imaan mayso ilaa ay xooluhu dhexdiinna ku bataan oo ay sida biyahoo kale u burqadaan meel la kala dhigan la waayo ilaa ninkii wax baxsan lahaa ee sadaqada la bixi lahaa murugtiisa iyo walbahaarkiisa ugu weyn ay noqotaba war sadaqada yaa kaa qaata talow yaa sadaqada kaa qaadan doona maanta wuu soo baxayaa dahab buu wadaa markaasuu jidadka wareegahayaa war sadaqada iga qaatuu leeyahay ninkuu usoo taagaba wuxuu leeyahay laa araba lii fiihi dan kama lihi buu leeyahay mana rabo danna kama lihi culayskiisa ila dhaaf buu leeyahay meeshaad geyn lahayd gee waa la wada dhergay 2 goor bay dhacaysaa mar way dhacdayoo waxay ahayd xilligii cumar ibn cabdilcasiis uu talada muslimiinta hayay oo muslimiinta intay futuuxaad fara badan ay heleen xoolihii laga dhergay ilaa zakadii iyo sadaqadiiba cid qaadatiya meel la siiyaba la waayeyba la wada dhergay nin walba meeshiisa ku dhergay way soo martay muslimiinta ilaa cumar ibn cabdilcasiis alkhaliifatu araashid uu amray haddii xoolihii iyo sadakadii meel lagu bixiyo la waayey meelo kaleeto iyo masaalix kaleeto iyo meelo kale ha loo sarfiyo ha loo iilo ha lagu bixiyo marka way dhacday mar labaad bay dhici doontaa waa xilliga aan u tegi doonno calaamaadka waaweyn markaan ka warramayno waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo mahdiga imaanshihiisa mahdiga soo bixiddiisa xilliga uu mahdigu soo baxo oo muslimiinta uu taladooda qabto oo muslimiinta isku hagaajiyo ayadana xoolihiibaa intay bataan baa meel la kala geeya la waayi doonaa markaasaa ninkii sadaqada bixinahayay murug iyo walbahaar war yaa sadaqada kaa qaadan doona ayaa iyadana imaan doonta insha allahu tacaala taasina waxay ka mid tahay calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu soo dhowdahay markii la arko siduu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamadahaas duhuuru lfitan inay soo baxaan fitnooyinku macnaheedu waxa weeye imtixaanaad dadka diintoodii la imtixaanayo masaa'ib balaayooyin islayn khilaaf dagaallo nabadgelyo darro inay soo baxdo muslimiinta dhexdoodii laysku diro ayadana waxa weeyaan xilligay bilaabato iyo muuqashadeeda iyo badashadeedu waa astaan waxay u tahay inay adduunyada dhammaanayso qiyaamadii soo dhowdahay axaadiis aad u fara badan buu macnaha nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidu abi muusa alashcari wuxuu nebigu yuri sal lla alay wasalam ina bayna yaday saacati fitanan ka qiطaci alleyli almudlim saacadda waxaa ka soo horeeya imtixaano iyo fitnooyin sida habeenka mugdiyadiisoo kale ah habeenka mugdigiisa sida la ogsoon yahay markuu soo galo qaybtiisa hore way fududahay xogaa iftiin baa ku jira
qaybta ka dambaysa ka sii madow oo ka sii mugdisan qaybta ka sii dambaysa ka sii daran qaybtay ka dambaysa ka sii daranta fitan midda ka dambaysa ay ka culus tahay oo isleedahay midani markay timaado wallahi tanka wax ka daran male haddana ta ka dambaysa markay timaado wallahi tanaaba ka daran tu kala ka sii dambaysa mise tanaaba beentiri wixii hore oo dhan fitanka noocaasa imaanshahooda ayaa qiyaamada ka soo horraysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yusbixu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kaafiran fitankaasi markay dhacaan ruuxu wuxuu waabariisanayaa isagoo oo muslim ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah ama gabalka u dhacaya isagoo mu'min ah waaguna wuxuu u bariyaa isagoo gaal ah yani daqiiqad buu isbedelaya yani wax way labada saacadood isku xiga midna diintii buu ka baxay midna wuu soo galay fitanka jira iyo mawjadaha iyo dhibaatooyinka iyo halista jirtay dadka diintooda haysata ayuu nabigu ka warramaya sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alqaa'idu fiha khayrun min alqaa'im fitankaasi markay yimaadaan ruuxa fadhiya ee istaagin ee fitnada ka fadhiista wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex taagan ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaayo ka khayr badan yahay midka dhex ordahaya yani kullama aad sii dhex gasho ayaduna way ku sii dhex geli shanta markaad la gasho 10kay kula geli markaad iska uruuriso way ka uruursami nimbar ruuxu kaga xeel dheer yahayna ayaduna way kaga xeel dheerta macnahaas uu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markaas wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xaalada markay timaado fitanku yimaadaan oo muslimiinta la isku diro qabiil bay isu leynayaan koox bay isu leynayaan deegaan bay isu leynayaan ayagii baa dhiigoodii xalaashaday isku ibtilaysan xaaladaasi markay timaado nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fakasiru qisiyakum qaansooyinkiina jajabiya qaansadu waa hubkii lagu dagaalamayay waqati'u awtarakum xadhiga qaansada la yiraahdo watarka xadhigii qaansadana jara oo gooye qaansadiina jabiya wadribu bisuyufikum alhijara seefti aad ku dagaalamayseen intaad ula tagtaan dhagax afkeeda la dhaca si au afbeesho af aad wax ku dishaba sayna u yeelanin markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inta markaad samayso hadii lagu soo galo oo muslimkii aad dagaalamayseen balaayadu idinka dhex taagnayd uu ku soo galo adoo hubkaagii jajabiyay waxaad noqotaa aadam labadu dhalay isdilay koodii khayr ka badnaa noqon nabiga sallallahu alayhi wasallam aadam labadu dhalay isdilay koodii khayr ka badnaa ma gacan ku dhiiglaha khayr badnaa mise kala dilay baa khayr badnaa kala dilay baa khayr badnaa nabigu marka wuxuu leeyahay kala dilayo noqo laakiin ka wax dilaya ha noqonin macnaheedu fitankaasi markay yimaadaan waa xaalad adag oo ku tusaya adduunkan inuu fasaaday ficlan nabigu geeridiisa waqti badan kama soo wareegin markay fitanku muslimiinta ku bilowdeen asxaabu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam mawqi'atul jabal bay iskaga hor yimaadeenoo imtixaan dhexdooda ka dhacay iyo fitno mawqi'atu sifiin ayay haddana isaga hor yimaadeenoo imtixaan iyo fitan dhexdooda ka dhaceen nabigana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummadayda dhexdeeda seeftu mar hadday ku bilaabato laynta islaynayaan ay bilaabato ilaa qiyaamadu intay ka dhammaanayso seeftaa dhexdeeda laga qaadi maayo nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa intay qiyaamadu ka imaanayso seeftaasi way socon seefta macnaha waxa laga hadlayaa hubkii waagaa lagu dagaalami jiray bay ahayde noocyada hubka oo dhan baa macnaha laga wadaa marba hadday iridu furanto oo fitanku furmaan wax afjari kara ma jiro way soconayaano maalinba meel un bay galahayaanoo ummad baa isbaabi'inayso oo islaynayso oo fitankaasi marka ka dambaysana way sii siyaadayaan saan u tegi doono ilaa heer la gaadho labada isdilaysa ayna garanaynin waxay isu dilayaan ka wax dilayana ma yaqaano wuxuu dilayo kan la dilayna ma yaqaano sabab loo dilay ilaa heerkaasi gaari doonta sana xadiis nabiga uu tagi doono sallallahu alayhi wasallam arimahaasi waxa iyaduna kamid tahay astaamaha ku tusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay waxa kamid ah calaamadaha ku tusaya qiyaamada soo dhawaanshaheeda dhuhurul khawarij nimanka khawarijta la yiraahdo soo bixidooda inay soo baxaan khawaarijta soo bixidooda nabiga ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi oo wuxuu yiri
آخر الزمان كوحا صوبح دونا نمرنا يرى أحداث الأسنان دأذو يرتهي سفهاء الأحلام قرشضوا دي عقل قودون الفدود يهي أو wax garad ahayn waxba miisaami karin oo wax badan kala garanayn yaquluna min khayri qawli al-bari quraanki ba akhrinaya iimaankooduna kalxamaha uma dhaafayo diinta waxay uga dhaxbaxayaan sida leebka ama xabada meeshii lagu ganaysay uga dhaxbaxdo kale saasoo kale diinta uga dhax siibanayaan meeshaad ku aragtaan balaaya layntooda ajir baa ku jirta cidii laysa maalinta qiyaamada bukhari muslim baa xadiiska soo saaray macnihiisuna waxa weeye khawaarijtii buu ka hadlayaa wayna soo bixi doonaan buu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam soo bixidooduna waxay ku tusaysaa inay qiyaamadii soo dhawaato waxay soo baxeen waqtigii nabiga waa jireen khawaarijta fikirkooda asalkooda raggii fikirku ka yimid waqtiga nabiga way noolaayeen laakiin inay noqdaan urur soo baxay oo ciidan leh oo awood leh oo meel degan oo wax laynaya waqtigii nabiga ma ahayn waqtigii nabiga wax yar kadib ay soo baxeen dagaalkii markuu dhacay jamal oo saxaabada dhex maray qayb bay ku lahaayeen dagaalkii ka dambeeyay sifiin ayaga sabab u ahaa oo intiisa badan lahaa dagaalkii markuu saxaabada dhex maray ayaa waxa lagu heshiiyay hal heshiyo reer Shaam iyo reer Ali ibn Abi Talib oo macnaha dhinac watay Muawiya iyo wala siimada waxay war waxan dhiigan aan dhamayno aan heshiino heshiiskii markii la soo bandhigay oo in la isu tanaazulo la heshiyo la soo bandhigay ayaa waxa la saaray niman xakam ah oo labada dhinac ka kala socda oo la yiri arinta soo dhaweeyo soo dhiraan dhiriya nimankii markay xukunkii soo saareen muslimiintii inay heshiiyaan ay noqotay khawaarij baa ka dhex booday khawaarij waxay yiraahdeen caliyow rag baad ilaahay kitaabkiisii intaad ka tagtay baad rag aqligoodii iyo maskaxdooda baad xukuntay kitaabkii ilaahayna meel baad ka martay haddaad rabto inaan ku raacno toobad keen ka soo noqo kitaabka ilaahay u soo noqo haddii kale sooma bari baan kaana barkaadii waa niman jaahiliina oo aqoon lahayn oo muxuu ahaay war cali wad khaldantay ama toobadkeen ama hadii kale waxbay suuma kan jiraan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardahu wuxuu ku yiri saddex arimood intaydan sameeynin saddex arimood intaydan fasaad ku kicino dad laynin wax dhibay naga soo kiin gaari maayo masaajidana idin diidi mayno wixii gaalo laga qabsado faygiina qaybtiinaad ku leedihiin dibna idin geysan mayno laakiin maalinka aad fasaad ku kacdaan oo wax laysaan maalinkaasi kala badbaadi mayno waxay isku urursadeen meel la yiraahdo Harura ciidan weyn oo aad u far badan bay sameysteen kadibna waxay ka shaqeeyeen inay laayaan raggii saxaabada ahaayee kooxaha kala watay Ali ibn Abi Talib bay dileen Ali intayna dilin buu la dagaalamay Muawiyana way dhaawaceen nimankii marka halkaas ay ka bilowdeen xilligaas ay soo baxeen Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda heshiiskaas uu la galay sidaas uu ku yiri way kala tageen meel bay isku urursadeen meeshii ay degeen baa waxay bilaabeen cidii soo martaba inay dilaan cidii soo martaba inay dilaan Abdullah ibn Khabbab ibn Aratan in la yiraahdo ayaa soo maray iyo xaaskiisii wada socda markaas waxay ku yiraahdeen noo sheeg wax aad ka maqashay aabaha iyo nabiga iyo noo sheeg bay dhaheen markaas xadiid uu sheegay maada ka maqlay ana ka maqlay intay soo qabteen bay isagii gowraceen xaaskiisina intay soo qabteen oo caloosheedii dilaaciyeen bay ilmihii ka soo tuureen iyadiina way dileen Ali ibn Abi Talib ergu diro wuxuu ku yiri ninkii aad disheen dhiigiisii baan idin ka fadhinaa ee dadkii dilay gacan ku dhiiglayaasha soo dhiiba markaas waxay yiraahdeen kulluna qad qatalahu dhamaantana wada dilay war dhamaantiin meedan wada dilin ragii gacan ku dhiiglayaasha keena maya waan wada dilay bay dhaheen
cali ibn abi taalib markaasuu go'aansaday inuu dagaal ku qaado dagaalka nahrawaan meesha la ka dhacay buu ku qaaday wuu baabi'iyey warkoodu waa dheeriya laakiin xilligaasay soo baxeen khawaarijtu xilligii cali ibn abi taalib aakhirkiisay soo baxeen kadibna nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh khawaarijtu inay soo bixidoodu muddo markii la joogaba inay soo bixiyaan oo soo noolaanayaan haddana la baabi'in haddana soo noolaanayaan haddana baabi'in ilaa marka ugu dambaysa dajaal uu ka soo baxo waa u tegi doonaa calaamaadka waaweyn buu ka mid yahay dajaal ilaa marka ugu dambaysa uu dajaal ka soo baxo khawaarijtu saasay afkaartoodu kolbaa u imaanaysaa koox ahaanna kolba ay u soo muuqanayaan buu nabigu tilmaamay sal lla alay wasalam soo bixiddaa khawaariji ay soo baxday afkaartooda iyo jiritaankoodu soo baxay ka urur xoog leh oo ciidan leh markaa wuxuu ka mid ahay iyaduna astaamihii iyo calaamadihii nebigu sheegay sal lla alay wasalam oo tilmaamayay inay qiyaamadu soo dhado wayna dhacday ficlan waxaa ka mid ah calaamadaha uu nebigu sheegay sal lla alay wasalam ummadda nebiga sal lla alay wasalam oo raacda ummadaha kale dhaqankooda afkaartooda akhlaaqdooda raaca ummadaha kale iyo mujtamacaadka kale ummaddiisoo iska dabagasha oo wixii kuwaa dhaqan u ahaa soo qaata oo wixii kuwaa diin u ahaa diin ka dhigta ha xumaado ha fiicnaado iska dabagalo un ummado kale iska daba dhigta calaamadahay ka mid calaamadaha qiyaamadu inay dhacayso ku tusaya ay soo dhowaatay bay ka mid tahay xadiidu abi hurayra macnaha sheegaya oo nebigu yidhi sal lla alay wasalam laa taquumu asaaca xataa ta'khuda ummatii biakhdi alquruuni qablaha ummadaydu ilaa ummadihii hore ay ku dayato qiyaamadu imaan mayso shibran bishibrin wa diraacan bidiraac dhudhundhudhun waxaan dhihi lahaa taaka taako iyo dhudhundhudhun ilaa ummadaydu ummadaha kale ay u dabagasho markaasaa wuxu yidhi ya rasuula allah ummadaha kaleed sheegayso ma faris iyo ruum baa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay waslam waman innaasu ilaa ulaa'ika madadaan kuwa ahayn baaba jiraba soo kuwa uun ma ah riwaayo kale waxay sheegaysaa abu saciid xadiidkiisa oo bukhaariyo muslim ay soo saareen nebigu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah alyahuuda waannasaara ummadaha aad sheegaysa ma yahuud iyo nasaara markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay slam faman yaa kale marka ama furus iyo ruum ha noqoto ama yahuud iyo nasaara ha noqoto ummaddiisu inay ummadaha kale iska daba gasho ayadana waxay ka mid tahay calaamaadka ku tusaya qiyaamadu inay dhici doonto ilaa nebigu wuxuu gaadhsiiyey sal lla alay wasalam xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh xataa hadday dhacdo inay godka bahasha la yidhahdo abeesalugalayda godkeeda inay galaan waad ka dabagelaysaan buu nebi sal lla alay wasalam yacni abeesalugalayda godkeedu meel bini aadan geli kara ma aha waa meel qarmuun oo haddana cidhiidhi ah oo haddana mugdi ah xataa meeshaa hadday galaan qaar ka dabagalaad yeelan doontaan buu nebi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal ablaq min hada rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam haddii laga helo qaar ayaga ka mid ah oo hooyadood jidka kale barhkiisa ku qabsanaya qaar idinka mid oo raaca unbaa la heli oo hooyadii jidka barhsamaheeda ku qabsanaya yacni waxa weeyaan sida aad wax u moodaysaan ummadaha kale iyo waxay haystaan waana sidii nebigu u sheegay sal lla alay wasalam maanta mujtamaca muslimka ah kii nin ahaana reer galbeed dhaqankooda nimankooda iyo qaabkay u dhaqmaan yuu taqliidinahayaa oo raadinayaa ilbaxnimo iyo waaye aragnimo iyo reer magaalnimo iyo fiicnaan baa waxay la gashay ninka cad wuxuu samaynaya samee wailaa haddaadan samaynin nin jiraba ma tihid reer baadiyaa tahay nolosha waad ka dhacsan tahay wax jira ma tihid haweentii reer galbeedku waxay samaynaysay bay ku ibtilaysan tahay haddii isqurxi la yidhi haddii labisa la yidhi haddii wax kastoo maqaayiistii oo dhan waxay noqotay wixii uu reer galbeed lagu arkayo ninka cad iyo naagta cad soo tii nebigu sheegaya maa sal lla alay wasalam ilaa wixii wasakdoodii iyo akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo mabaadi xumadoodii iyo dad badani ay u qaateenba inay tahay wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo inay tahay nebigu sal lla alay wasalam wuxuu ka sii warramay arrintaasi markay dhacdo qiyaamadii waa soo dhowdaha maanta maalin ay ka daran tahayna muslimiinta ma soo marin fi taariikh maanta maalin ay ka daran tahay ma soo marin wayna ka sii dari doontaa raaciddaasi mujtamacaadkaasi reer galbeedka iyo gaalada iyo dhaqankooda la raadinayo la dabagelayo oo sidoodoo kale layska dhigayo nebigu wuxuu ku sheegay sal lla alay wasalam calaamadaha
ku tusaya inay qiyaamadu dhowdahay waxa kamid ah oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa soo bixi doona buu yiri niman fara badan oo gadaashayda nabinimo sheeganaya kuwaasi markay soo baxaana qiyaamadii waa soo dhowdahay saacadii waa dhowdahay wuxuu sheegay nabigu sallallahu alayhi wasallam 30 nin wax ku dhow oo mid walba nabinimo sheeganaya ayaa gadaashay imaan doona imaanshahooduna waxay astaan u tahay inay qiyaamadii dhowdahay mid walba wuxuu leeyahay nabi baan ahay wa ana khatamun nabiyina wala nabiyya ba'di ibn sallallahu alayhi wasallam nabiyya ana u dambeeya nabi alla soo diro nabi iga dambeeyana ma jiro laakiin waa beenaalayaal way soo baxeen ficlan nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ka warramay gadaashii way soo baxeen intuu noolaa oo nabigu ba dhimanin rag baa nabinimo sheegtay waxa kamid ah midalan ninkii la dhigi jiray musaylimatul kadhab oo reer bani xaniifa nabiga noloshiisii aakhirkeedii ayuu nabinimada sheegtay waliba nabiga intuu u yimid sallallahu alayhi wasallam madiina ugu yimid iyo gorgortan la galay kama fi sahih al-bukhari oo uu ku yiri maxamedow aniguna nabi baan ahay adiguna nabi baad sidaas daraadeed haddaad rabto inaan ku rumeeyo adiguna i rumee adigu i rumee anna waa ku rumayna midda kale madaxnimada hadda adiguna hogaami laakiin markaad dhimato ii dardaaran inaan anigu hawsh kaaga dambayn doono waa ku raacaya markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam warniyow tabartaada dhaafi maysid beenaalaal la tahay buu ku yiri waxba ma haysid musaylimatul kadhab meeshii buu ka noqday waxa la dilay xilligii Abu Bakr as-Siddiq gaaladii ridowday ee lala dagaalamay waxa kamid ahaa qabiilkiisa reer bani xaniifa macrakada caanka ee yamaama loo yaqaano ayaa musaylimatul kadhab lagu dilay reer bani xaniifa nabi u ahay buu dhigi jiray nin noocaas soo baxay xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu soo baxay waxa kamid ah midalan al-aswad al-anasi ninka la yiraahdo yaman buu isaguna ka daahiray saxaabada dishay intuu san nabigu dhimanin wax yar ka hor baa la soo dilay isagana waxa kamid ah haweenay la dhigi jiray sajaax hatta naag dumar baa hatta nabinimo sheegtay ayaduna xilligaas ay nabinimo sheegto nabi baan haybet waxa guursaday ninkii la dhigi jiray musaylimatul kadhab baa guursaday way xaas u ahayd markii la dilay musaylima ayay toobad keentay oo diinta dib ugu soo noqotay waa sajaax waxa kamid ahaa ninkii la dhigi jiray Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi oo isaguna nabinimo sheegtay laakiin ka soo noqday oo toobad keenay islaamnimadiisu dib ka fiicnaatay kulligood waqtiga hore ahaayeen taariikhda dheer marka xilli walba nin baa soo bixi jiray nabi baan hadii jiray ilaa ay haddana way socotaa ilaa ay hadda adduunka meelo badan baad ka maqlaysaa nin intuu maalmo xoogaa is yara shuumay oo mara isa saaray oo meel isku yara qariyay oo xoogaa dad yeeshay nabi baan la soo booday tifwa waxa ugu dambeeyay taqriiban ugu caansan ninkan hindiga ee la yiraahdo yaani waxa muxuu ahaayay Mirza Ahmed Ghulam al-Qadiani oo dariiqadan qaadiyaaniyada asaasay oo asalkiisu hindiga ayaa ugu dambeeyay oo maraakiis fara badan iyo atbaac fara badan iyo santarru ku leeyahay caalamka reer galbeedka khaasatan ingiriiskana taageeray oo ingiriisku xilligu gumeysanahay muxuu ahaayay hindiya iyo Pakistan iyo xilligaas soo baxay dariiqada qaadiyaaniyada la yiraahdo ama ahmadiyada la yiraahdo ninkii asaasay nabi baan ahay nabi baan ahay nabi maxamed ka dambeeyay kuwaas ku jira kadab beenala abuha daa'ifadiisi iyo kooxdiisi iyo atbaacdiisuna waa gaala aan islaam ahayn meelahay masaajidda ku sheegaan masaajid meehay waa macaabid masjid maaha ahkaam muslim maqata bil ittifaq hadal kuma jiro marka kuwa faraha badan ee nabinimada sheeganaya iska daba iimaanaya waxay kamid tahay calaamaadka ku tusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay kuwaasuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wayna fara badan yihiin inta aan sheegnay kuwa kala ayaa ku jira waxa kamid ah calaamooyinkaas meesha la yiraahdo Xijaaz ayaa waxa ka kici doona dab oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam dabka meesha kacay Sham geela daaqaya luquntiisa ayay iftiimin doontaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka macnaha sheegay Bukhari Muslim baa soo saaray Hurayra dab wuxuu dhacay sanadka hijriga mar 600 iyo 54 taariikhda hijriga ayaa magaalada Madiina waxa ka kacay
burkaan aad u weynay iftiinkeedu uu gaadhay culimadii markaa joogtay qoray raggii wax dambeeyayba wax ka qoray taariikhda muxuu ahaayey xilligaasi markay ku aadanayd magaalada madiina dhanka koonfureed oo magaalada wax yar ka yaro durugsan meeshaasaa waxaa ka kacday vulkaana ka kacday ama burkaan baa ka kacday burkaantii meeshaa ka kacday baa waxay keentay ilaa shaam xoolaha daaqaya inay iftiimiso oo muddo dabkaasu shidnaa nebigu waa ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xijaaz waxaa ka kici doona dab iftiimin doona geela daaqaya shaam busra oo shaam ka mid ah geela daaqaya luquntiisa iftiimin doonta buu nabi sallallahu alayhi wasallam way dhacday sidii nabigu u sheegay u dhacday sallallahu alayhi wasallam qiyaamadu inay soo dhowdahay bayna astaan u tahay buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamooyinka iyo astaamaha waxaa ka mid ah ammaanadoo la dayaco ammaanada oo la dayaco ammaanadu maxay tahay mas'uuliyadda xilka wixii lagugu ammaanaysto sirta lagu dhiibto xoolaha lagugu ammaanaysto ammaanadiioo la dayaco oo dadkiiba laga waayaba ruux ammaanada qaban karo aamiinaba laga waayaba calaamooyinkay ka mid tahay xadiid abi hurayra ku tusaya nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam idaa dayicat alamaana faاntadir isaaca ammaanada markii la dayaco saacadda sug qiyaamadii baa qarka soo saaranay sug buu nabi uri sal lla alay wasalam markaasaa waxa idhi ya rasuula allah kayfa idaacatuha ammaanada dayiciddeedu sidee weeye markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi faاntadir isaaca haddii arrinka iyo xilka iyo jagada iyo kursiga muslimiinta loo dhiibo cid aan mudnayn cid aan dadkeedii ahayn qiyaamada sug ammaanada la dayacay waa taa qiyaamadii markaas sug buu nabi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh sidaa weeye xilka muslimiinta yaa haya maanta yaase u hanqaltaagaya yaase raadinaya waxaa hayaay sidaan u tegi doono waa nin xun waa nin xun oon ammaanadii lagu aamini karin wey ammaanada la dayacay ka u dhiibahayee u dooranahayee siinayana waa dayacay isaguna ninkii mudnaaba ma aha xilligaasi qiyaamadii waa dhowdahay buu rasulku uhi sal lla alay waslam kadibna nebigu wuxuu ka hadlay sal lla alay waslam xadiidu xudayfa sida ammaanadu dadka quluubtooda looga saarayo ilaa uu rasuulku yidhi sal lla alay wasalam dadkii waxay ahaanayaan kuwa heshiisyo galaya baayactamaya heshiisyo kala gelaya ballamo gelayo ruux ballantii iyo ammaanada ilaalinayana laga heli maayo ilaa laga yidhaahdo ree hebel waxaa ku jira nin aamin ah ree hebel nin aaminaa ku jira maanta awdaacda haddaad si fiican uga warhayso ama awdaacda xoolaha iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ha noqoto ama ammaanaadka iyo guryaha ha noqoto ama siyaasadda iyo jagooyinka ha noqoto meelay ammaana ku ilaashan tahay ma jiro bal iskaba dhaafe ninkii aad mujtamaca kala baxday oo diintiisa iyo wadaadnimadiisa iyo iltizaamkiisa aad la baxdood ka dooratay kiibaa balaaya kaaga imaanaysaa kiibaaba balaaya kaaga imaanaysaa mushkilada jirtaa marka waxa weeye ammaanadii baa luntay maanta hebel baa amiinana waa farku fiiq waay xaaladdaasi uu nebigu sii sheegay maantana jirta kana sii dari doonta waxay iyaduna ku tusaysaa inay qiyaamadii soo dhowdahay oo astaamaheeda ayuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxaa ka mid ah calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusaya cilmiga shareecada oo dadka garanaya yaraadaan dadkii baran lahaana ay ka tagaan oo ka zaahidaan sidaana cilmigii shareecadu ku yaraado nabiga sal lla alay waslam wuxuu leeyahay min ashraati asaacati an yurfaca alcilmu wayahbuta aljahlu buu nabi sal lla alay waslam saacadda qiyaamada waxaa ka mid ah calaamooyinkeeda inuu cilmigu yaraado ama cilmigaba la qaado waa cilmiga shareecada jahliguna sugnaadoo faafo wax aqoon shareeco leba oo diintiiba garanayaba maba jiraba ama waaba yar yahay ilaa waxay gaadhayaan sida lagu qaadayo cilmiga ummadda looga qaadayo waa cilmiga shareecade uu nebigu tilmaamay sal lla alay waslam xadiidka cabdillahi bni camr bni caas fii saxiixi albukhaari nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam cilmiga dadka looga qaadi maayo in quluubtooda laga masaxo oo ruuxii caalimkaa intuu seexdo berri isagoo jaahila soo toosi maayo laakiin cilmiga waxaa loo qaadayaa biqabdi alculamaa
culimadii baa yaa la dilayaa way dhimanayaan way le'anayaan dadkii diinta yaqaanay cilmiga yaqaaneenna cid ka reebaysa ma jirto leanna da'yartii iyo dadkii cilmiga baran lahaa adduunyaa lagu mashquulsan yahay qaar ganacsi bay erayaan gaarna maaddo iyo adduunyay baranayaan cilmigii diintana waaba laga zaahidayba cidina kama reebin culimadii taqaanina waa dhimatay hadday kuwaasi tagaan dadkii dad waxay diin weydiiyaan bay u baahan yihiin dad juhalaan waxba garanaynin ayay intay culimo moodaan bay marka diin u dooranayaan weydiinayaan kuwiina xishoon maayaana way iska hadlahayaan way fatwoonayaan ayagiina lumeen dadkiina waa lumiyeen culimadii marka waa dhimatay keedii waaweynaa waa dhimatay kuwii yaryaraa waa ku daba jiraan wax culuumtii reebahayana ma jiro culuumtii shareecadu waxay iska noqotay shay aan loo qasdino ninkii u qastana uusan meel badanba ka gaadhinba tii nebigu sheegay wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa heer waxay gaadhi doontaa cilmiga iyo diintu siday u baaba'ayso heer waxay gaadhaysaa uu nebigu sheegay sal lla alay wasalam yadrusu alislaamu kamaa yadrusu washyu thawb islaamku waa duugoobayaa sida marada xararhkeeda lagu xarxardho ay u duugowdoo kale ilaa dadka qaarkood ay gaadhaanba inayna garanaynin soon wuxuu yahay iyo salaadi waxay tahay iyo xaj wuxuu yahay iyo sadaqa waxay tahay wax ay ka warhayaan faraa'idii waaweynaa ee diinta xataa kama warhayaan kitaabka ilaah habeen baa lagu soo guurayn markaasaan waxba laga reebayn dad baa soo hadhaya marka islaan duqo weyn oo da'ah iyo oday weyn oo isaguna da'ah baa soo hadhaya salaad ma yaqaanaan oo soon ma yaqaanaan oo sadaqa ma yaqaanaan inay sameeyaan iskaba dhaafi xataa ma garanayaan laakiin waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah intaasaanu ayeeyooyinka awyadana ka soo gaadhnay intaasay haystaan laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah salaad ma yaqaanaan soon ma yaqaanaan cibaado kale ma yaqaanaan halkaa kelimay ku midsan ku dhaggan yihin xudayfa xadiidka warinaya nin ardaygiisa oo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan sila la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi xudayfow dad aan salaadna aqoonin sakana aqoonin xajna aqoonin sadaqana aqoonin laa ilaaha ila allah keliya afka kale maxay u tari buuri maxay u tari waa ka jeesaday xudayfa waa ku soo celiyey waa isaga jeesaday waa ku soo celiyey markii saddexaadba wuxuu ku yidhi tunjiihi min annaari yaa sila buu ku yidhi silow laa ilaaha ila allah masale sahlan amoodine naartay ka badbaadin buu ihi laa ilaaha ila allah ay awowye iyo aabba ka soo gaadheen ay ku dhaggan yihiin diinta inteedii kalena ayna kaba warhaynin intaasi naartay kaga badbaadayaan buu yidhi laa ilaaha ila allah naartay ka badbaadin buu yidhi ilaa heerkaasuu gaadhaya maxaa keenaya cilmigii shareecadaa laga fogaanayaa jahli baa camimaya ilaa heer dadku waxay gaadhayaan xataa faraa'idii waa arkaantii waaweyneed ee diinta inay jaahil ka noqdaan wa ficlan waa midda maanta in meelo badan ka jirto jahli mutbaq ah baa ka jira meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna waxoogaa saxwa baa jirta laakiin saxwadii kacday iyo baraarugii xooggii loo baahnaa aqoonta iyo barashada diinta in la saaro lama saarin waxoogaa keenna ugu rooni waa wadaadka waxoogaa dhowrka kitaab laqmaystay afaraydiisana tuuran kara laakiin aynan intaaba u dhaafsiisnayn waraaway muxuu ahaayey yacni aqoontii xeesha dheerayd ee cilmigii qur'aanka iyo cilmigii sunnada iyo fiqhigii iyo siyaasadii sharciga iyo aaway wixii maya intaasaa lagaga kaaftoomayaa marba hadduu xoogaagiisa tuuran karayo waa sheekh waaye laqab sheekh iyo muxuu ahay macallin iyo imaam iyo wabillahi tawfiiq warku intaasuu ku egyahay musiibo weyn waay ummaddu markay cilmiga shareecada ka jeesato barashada diinta ay ka tagto musiibo ka weyn oo ku dhacaysa ma jirto calaamaadka iyadana ka mid too nabigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam calaamaadka waxaa ka mid ah in ay bataan dadka booliiska la yidhaahdo ee u kaalmeeya madaxda daalimiinta ah caawiya ee dadka u garaaca u tuma oo shaabuugga wata kuwaasi soo bixidooduna waa astaan cala inay qiyaamadii saacaddii soo dhowdaa ku tusay oo nabiga ka sugan tahay sal alla alay wasalam yakunu fi hadihi اlummati fi aakhiri الzamaan rijaalun aakhiru zamaanka waxaa imaan doona qiyaamadu markay soo dhowdahay rag shaabuugyo wata jeedal bay wataan kaannaha adnaabu اlbaqar lo'da saynteedoo kale ah dadkay ku garaacaan yaqduuna fii sakhat illaah
ويروحون في غضبه بالنبي صلى الله عليه وسلم صباحدينا إلهي عدديسي ku kalahan galabtiina Ilaahay cadhadiisa la soo carraabaan adiga booliis sadaad maqasho waa meel balaaya taalo waa khaasatan dawladda iyo nidaamka meesha ka dhisan hadduu dhaalim yahay oo cadaaladi ayna jirin waxa aad wax u garaacayseed wax u tumayso waa nidaamka dhaalimka waa kuwa nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam kuwa noocaas ayaga kaliya ma aha andimada dhaalimada ee cadaaladda aan ku salaysnayn oo dhan wixii la shaqeeyo dhan oo wax u garaaca oo wax u tuma oo wax u xidhiidha kuwa iyaga waa yaqtuna fi sakhati Allah wa yaruhuna bi ghadabihi dadka noocaas badashadooda iyo soo bixidooduna astaan calaamaadka qiyaamada kamida uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa kamida zinada oo faafta oo badata zinadu ficlan way jirtay waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaaba jirtay zina ay ka dhacday oo qaar la xaday oo qaar la dilay zinadu marka way jirtay sidaadaba mujtamac aan laga helaynin dad khaldamaya ma jiro laakiin waxa laga hadlayaa markay intay xadda dhaafto banaanka u soo baxdo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan inuu yiri ummadayda la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif ummadayda waxa laga heli doonaa dad xalaalaysta oo banaysta baasha la yiraahdo zinada xariirta qalabka la garaaco ee lagu ciyaaro sida muusiga iyo macnaha waxyaalaha la garaaco dhan dad xalaalaysta iimaan doona ummadayda ka badan Nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu ku leeyahay Allah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ummadani dhamaan mayso ilaa uu ninku haweenayda intuu isu taago fayaftarishuha fi tariiq jidka intuu ku qabsado oo jidka dhexdiisa ku goglado meeshii gaadhay baashii guryaha iyo laalaabka iyo lala gali jiray dariiqa dhexdiisuba ku goglanayaaba ilaa heerka ay gaadho ummadani dhamaan mayso Nabi sallallahu alayhi wasallam طيب فيكون خيارهم يومئذ من يقول dadka maalinka jooga kooda ugu akhyaarsan ee ugu dadnimo badan waa midka dhahaya kaas haweenta ku qabsaday jidka dhexdiisa ayuu wuxuu ku leeyahay law waraytaha waraa hada alhaa'it warhade warniyo waxooga ma darbiga dhanka shishe kala marti ma hawrsinada iska daama way soo dhaaftay war guriga la aad ma hotelka la aad ma warniyo waxooga jidka dhinaca uga la yara baxo halka la yara tagwa dadka ninka ugu akhyaarsan ba maalinka sida dhihi doona Nabi sallallahu alayhi wasallam soo saasma tabtaw adu bal Yurub iyo reer galbeed iyo reer bari iyo meelaha fasaadku u banaanka dhigtay balu birta adig saas weey shidadka iyo banaanada iyo dal laga male aduguna inaadun muxuu ahay waxooga iimaan qalbigaaga haduu ku jiro waxooga isdhuudhuub inaad ku marta mooyee xagta dhankan ula durugma dhigi kartid maada dhigi kara dhanka ula durug xorriyadiisa waa meel kaga dhacday hay faragelini way maxaa faragelinaade dadku waa xor waxay sameeyeen xor bay u yihiin tasarrufaadkooda xor bay u yihiin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam taasi markay timaado qiyaamadii suga qarkay saaranta way macna sidaas weeyaan xadiiskaas Abu Ya'la baa wariyay isaguna waa xadiis sugan waxa kamida zinada faafideeda waxa iyadana uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ribada faafideeda iyo xaaraanta cunideeda ayaa iyaduna aad u faafi doonta bayna yaday saacati yadharu riba waxa ajiiba zinada ummadayda qaar baa banaysan doona Nabi sallallahu alayhi wasallam maanta adduunku meeshuu marayo nidaam ahaan hadaa tiraahdo zinadu waa xaraam wadamada qaar kood agtooda dambi bay ka tahay inaad tiraahdo waa xaraam waxaan xusuustaa maalin dhaweyd oo muxuu ahaayay Yurub Turkiga ay wada hadal u socdeen oo Turkigu inuu ku soo biiro uu isku dayay Yurubna ay hangool isaga hayso waxooga iska celinaysa shuruudihii lala galay waxa kamid ahaa Turkiga haddaad doonaysaan inaad nagu soo biirtaan qawaaniinka idin yaala waa inaad wax badan ka bedeshaan maxaa kamid ah waxaa kamida zinadu waa jariimo badala lay intay nidaamkiina iyo dastuurkiina ay ku jirto zinadu waa dambi naguma soo biiri kartaan
turkiga maalinkii baa laga saaray nidaamkiisa oo zinadu waa dembi waa laga saaray si ay yurub ugu soo biiraan ilaa ay haddana ma hayaan soo ma allana waa ka fogaadeen yurubna waa ka fogaadeen waxaa ma hayaan ilaa heerkaasay gaadhsiisan tahay xataa zinadu waa xaaraam waana xun tahay waa akhlaaq darra waa fuxshi inaad tidhaahdaa waaba jariimaba iskaba dhaaf muxuu ahaaye wax kale inaad ka bahadashee samaynteediiyo warkeeda iska baddaa inaaba tidhaahda waa khalad baa dembi ah caalamku meeshaasuu maanta maraya nebigu sal alla lay waslam miduu tilmaamayana taa iyadaa wey waxyaalahaas imaan doona ayuu ka sii warramay ribadaa ka mid ah oo nebigu uri sal alla lay wasalam markay qiyaamadu soo dhowdahay ribadaa faafi doonta zaman waxaa imaan doona nebigu uri sal alla lay wasalam uusan ruuxu u aabayeeli joorin xoolaha meeshuu ka helo meel alle meeshay wax ka soo galaanba uu iska qaadanaa laakiin isweydiin maayo ma xalaal baa mise waa xaaraam ma xalaal baa mise waa xaaraam xalaasha waxay yidhaahdaan alxalaalu maa xalla fii yadika waalxaraamu maa xurimta minhu xalaal waxaa la yidhahdaa wixii gacantaada soo gala xaaraamna waxaa la yidhahdaa waxaan ilaahayba kuu qorinba waa meeshay soomaalidu ka tidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa waxaan ku cuninba waa la cunaa yacni wax alla waxaad heli karto adiga gacanta mari oo cagta mari oo ururi oo hoo aba yeeli marka waxa weeyaan yacni inay sidaasi heer kaa gaadho oo dadku ayna u aaba yeelin waxay qaadanayaan iyo waxay cunayaan iyo qaabkay wax u kasbanayaan iyo dariiqay wax ku helaayaan waa astaan iyo calaamo ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowaatay oo nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaad ku garan kartaan ribada waxaa nebiga ka sugan sal lla lay slam inuu yidhi xilli waxaa imaan doona ribadu intay faafto dadku ay laba mid noqonayaan ruux ribadii si toosoo badheedha u cunay iyo ruux ribadii ay busteedii iyo qiiqeedu soo gaadhay labadaa mid waa laakiin ruux ka nabadgelayaaba iska yar waxaad ku garan kartaan maanta dhaqaalaha adduunka ee muxuu ahay ra'samaaliga ah ama hanti wadaagga la yidhaahdo waxaan dhihi hanti goosadka la yidhahdo reer galbeed ka soo jeedaay asaaskiisu waxay waa ribo bunuugtooda iyo mu'asasaadkooda asaaskoodu waa ribo caalamkii kalena iyagu la tacaamulahayo iyagaasaa wax u dejinaya marka haddaad bangi la mucaamalooto haddaad credit card ku mucaamalooto haddaad suuqa ka mucaamalooto yaa imaa inaad ribadiyo cad cunto haddaadan diin lahayn haddaad waxoogaa is-ilaalinaysana kollay wuxuun ku soo gaadh kollay wuxuun ku soo gaadh si aad uga badbaaddo ma fududa taa way miduu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ribadu sida ay u faafayso waana calaamaadka qiyaamadu inay dhowdahay kutusaya waxaa ka mid ah sidaan horayba usoo sheegnay axaadiista nebiguna ay tilmaamayso calaamaadka waxaa ka mid ah qalabkan lagu ciyaaray muusiga iyo heesaha iyo kuwa heesa inay iyaguna bataan oy faafaan weliba la bannaysto oo la xalaalaysto oo la yidhi waa xidigii iyo xidigtii iyo kan iyo najmigii sida loo ammaanayo ruuxaan qiimo lahayn akhlaaq lahayn diin lahayn waa ammaanay wixiisuna waa ammaanay waa la xalaashan calaamaadka imaan doonay ka mid tahay nabi sallallahu alayhi wasallam markay yimaadaanna astaan waa adduunka inuu fasaaday oo qiyaamadii ay dhowdahay ayuu nebigu ku daray sallallahu alayhi wasallam waxaa ka mid ah khamrada cabitaankeeda iyo waxyaalaha maandooriyaha ah oo magacyo kala gegedisan loo sameeyey oo isticmaalkooda iyagana uu bato khamradii biyaha ahayd oo la cabo caleen la daaqo ilan qaadku waa khamre annaga qaad baan ula baxnay laakiin magaciisa saxda waa khamro ninka qaadka cunaya ninka khamrada caba waa isku mid ninka qaadka cuna iyo ninka khamrada cabaaya waa isku mid wax farqiga u dhexeeya ma jiro midka daroogada qaata ee kiniiniga ruuga iyo midka irbadda qaata isku dura iyo midka caleenta ruuga iyo midka biyaha cabaaya kulli khamray wada cabeen لأن شريعة خمرة ما حيوتقانا شريعة خمرة وحيوتقانا كل ما خامر العقل فهو خمر عقلك بني آدم يجرشدي سويحي وحياله أردن وخمره سيدو دوني أضيع كويبان أما حين هلا قاتو أما أفكه هلا قاتو أما هلا الروبة أما هلا عبد تنملي تاس مهمة وين مسيحها مركز خمرة إيو مقعية كلا قد السنين لقوا عبد لقوا استعماله أيضا واحد كم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على موين كي كم واحد كم ذا in dadka islayntoodiiyo dilku bato oo dadku xataa cuquusha laga qaado oo muslimiintu isbaabiyaan saan horeyba usoo sheegnay waxaa ka mid ah ilaa uu heer uu gaadho ruuxu waxa loo dilayna uusan garanaynin ka dilayana uusan garanayn wuxuu u dilaa bal meel walba adigu fiirso
meel walba waxa islaynaya waa muslimiintii waxa dhiigooda xalaashada waa muslimiintii Soomaaliya mise iska dish bal muslimiin kale u kaadiye 20 sano tagtay imisaan aakhira u dirnay ya dadka allaynaysa waa dadkaagi waa ehelkaagi waa walaalaha waa dadkii tukanahay waa dadkii ahlu diinka dadka allaynaysa ka dilayana ma garanayo waxa uu dilayo kala diinayana ma garanayo wax loo dilay laakiin la isbaabi'i saxaabadu waxay rasuulillaah markaan saa isu baabi'inayno aqliga nagi miyuu joogaa markaa ma dad garashadoodii joogaanu nahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maya zamanka isaga ah dadka cuquushi baa laga siibayaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam cuquul ma jirto waa duu aqli jiro ma ehelkaaga baabi'in lahay aqli ma jiro cuquusha laga qaadaya markaas waxay noqonayaan sida xoolaha oo kale bahaa'im is-eriyanayso kale ayay noqonayaan waxa kamida calaamaadkaasi bakhaylnimada iyo lixjeclada oo siyaada iyo adduunyada loo gacan geliyo ninba ninku ka xun yahay adduunyadii kursigeedii iyo xoolaheedii iyo jaaheedii waxa gacanta uu galayaa ninba ninku ka dadnimo xun yahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam dhahay min ashraat as-saa'ah an yadhhara ash-shuhu يعني ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني وحويان علاماتك قيامة كمتة وفعلا وصاه لحج على ضوء بدتا هي الدنيا دي ونين حنون قعنت وقش أخيارتي بلغا إلالية وحكم ذا قناعسيقو فافا قناعسيقا وبطا إساقنا فافا إلى أن نينك إيحاسكيسو أي قناعسيقا إسلاق قلان إلى أن نينك إيحاسكيسو أي قناعسيقا إسلاق قلان حديث ابن مسعود با معناها قدوسي احمد يا حاكم سو سارين والنبي صلى الله عليه وسلم ساعده وحير وحا كهوريا ان اي غنعسيغو او فافو حتى تشارك المراه زوجها في التجاره الى اي هوينتو نينكيدا كلا قيب قادتو غنعسيغا معناها سي هذا سوميان معناها سي ظاهر وهي بل هذا مادان هذا السوقيه idinku ma badne laakiin meesha suuqyada Soomaalidu u badan yihiin oo Nairobi hada timaada suuqa dumarka iyo ragga dumarkaaba ku badan ba dambi ma aha ceebna ma aha laakiin waa calaamad markay soo baxdo ku tusaysa inay qiyaamadi soo dhawdahay leena calaamaadka qiyaamada aan tirinayno qaarna waa waxyaalo xaraam ah qaarna waa waxyaalo aan xaraan ahayn oo iska banaan laakiin badanaya tan oo kala kamid ah arintaasi waa arin iyadana mulaaxad ah khaasatan hada mujtamaca Soomaaliga markaad fiiriso shaqo kale oo badan oo hadda la hayo ma jirto mucdamkoodu ganacsi bay galeen ganacsi bay leeyahay adduunkii kale iska badhaa warkiis ganacsigaas iyo badashadiisa ayaduna waa calaamad kamid ah calaamaadka saacaduna soo dhad waxa kamid ah oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam dhul gariirka oo bata kathratu zalazil dhul gariirka adduunka ku bata taqriiban markaad hadda adduunka fiirisaan bil aan dhul gariir adduunka ka dhacayn ma jirto ha kala fududaado laakiin ihsaa'iyaadka bil walba hadayna laba goor dhul gariir dhicin hal mar waa dhacaya waagi hore waa yaraan jiray laakiin waa soo siyaadada dhul gariirku uu siyaadayo waxay ku tusaysaa adduunku inuu kharaabi rabo xaaladiisa isbedel baa ku socda waxa kamid ah dadka wanaagsan inay tagaan oo dadka intiisu xumaa soo hadhaan الصالحين تبا تغيا اخيار تبا تغيا علماء تبا تغيا اهل الدين تبا تغيا dadkii xumaa baa soo haraya ayageena qiyaamada ku dul dhixi doonta sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa kamida irtifaa'ul asafil dadkii hooseeyay oo nolosha dadka hoose aha oo xumaa oo diin darrada iyo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada laha ayaa soo saramaray kuwii fiicnaa hoos maray ayaga madax ayaga talinay ayaga dhaqaalaha haysta dadkii akhyaarta ahaana hoostooda ay ku noolyihiin waka nabigu sallallahu alayhi wasallam إنها سيأتي على الناس سنوات خدعات سنده وحدتك كو إيمان دونه خديعد إيه خيانة بدن يصدق فيها الكاذب ننكي بيان لها وركي سوى الله الرميسان ويكذب فيها الصادق ننكي رنت الشيقين وحبا لقا قادا ماي ويؤتمن فيها الخائن خائن كوركي سي ولا آميني ويخون فيها الأمين روحي آمين كأهانة خائن ما لغو حكمي مقاييستي ودن با markay isrogto isbadashay wayantiqu fiha ar-ruwaybid nabi sallallahu alayhi wasallam dadka xunxunna way halli dadka xunxun markaas waxay yiraahdeen ruwaybidadu maxay tahay rasuulilaahi wuxuu yiri as-safih yatakallamu fi amri al-'amma ruuh xun oo liita
oo arrimaha caamka ee muslimiinta ka hadlaya arrimaha caamka ah waa siyaasi baan ahay buu leeyahay waxbuu taxliilinayaa masaalix waaweyn buu ka hadlayaa danuu ka hadlayaa dawlad buu ka hadlayaa ummad buu ka hadlayaa masiirkeeduu ka hadlayaa markaad u fiirsatana waxaad dhihi war kan lafihiisa u dayacan yahay baad isdhihi war kan muxuu ka hadlay isagaba lafihiisa dayacan reerkiisii baa dayacan ilmihiisii baa dayacan isagii baa dayacan markaasuu wuxuu ka hadlayaa arrimo caam diin xumo akhlaaq xumo dadnimo xumo kuwa noocaasoo kalea markay soo saramaraan oy madaxa fadhiistaan dadka akhyaartiisiina hoos maraan qiyaamadii baa soo dhow bal adduunka u fiirsa adiga yaa ka taliyoo jooga waa un intii xumayd saas way macana ninba ninkuu ka xumaa unbaa meesha sara tegi akhyaartii iyo dadkii kalena waa nin cararay oo waxan iyo fitankan iyo balaayan lafihiisa uga cararay iyo nin la eriyey labadaa mid waa inta xun baa marka soo saramari inta xun baa ka hadli inta xun baa danaysa inta xun baa xukunta inta xukun baa muxuu ahaay talisa inta war wanaagsan hoos bay marayaan calaamaadka qiyaamada ayuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waan gabagabaynaya insha allahu tacala waxaa ka mid ah dumar uu nabigu sheegay sal lla alay wasalam oo soo bixi doona oo maryo qaba haddana qaqaawan wax maro u eg mara magaceed leh baa jirkooda saaran laakiin cawradii ma astura ama maradaa khafiif oo jirkeedii baa muuqdo hoosta gudaha ka muuqdo ama ma ahe maradii baa ku dhagan markaasaa jirkeedii muuqdaa kor ka muuqdaa ama ma ahe maradii baan jidhka wada gaadhayn oo qayb ka mid ah bannaanka taalla wax mara magacle baa korkooda saaran waana qaawan yihiin kuwaasi markay soo baxaan calaamaadka qiyaamada ka mid tahay waana maanta sida wax u yaallaan waxaa ka mid ah beentoo badata iyo hubsiimada warkoo layska hubiyo oo iyadana yaraata waxaa ka mid ah dumarka oo bato raggu yaraadaan tirada dumarka oo bata iyo tirada raggoo yaraata ilaa nebigu yidhi sal lla alay wasalam ninku uu mas-uul ka noqdo halkii nin konton dumar uu mas-uul ka noqdo konton dumar wuu qabaa macnaheedu maaha laakiin konton buu mas-uul ka yahayoo qaar waa hooyooyinkii qaar waa habaryarihii qaar waa walaalihii qaar waa xaasas konton dumara baa ninkiiba mas-uulu ka noqonaya calashaani dumarkiibaa batay raggiina waa yaraadeen soo maanta sidaa uma jirto tirada dumarka adduunka iyo ragga marka laysu miisaamo intaasoo goor bay ku labanlaamaya waana sii siyaadayaan waana ta nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah geerida kadadaa oo badata sida kadadoo loo dhimanayo haa qalbigaa istaagay wadnahaa istaagay ruuxii oo seexday ma soo kicin diyaarad baa la dhacday hal mar buuba dhintay mawtulfaj'aha oo bata qiyaamada calaamaadkeeda kudus ay ka mid tahay waxaa ka mid a dagaalka uu nebigu sheegay sal alla alay wasalam oo muslimiinta iyo yahuuddu ay geli doonaan aakhiru zamaanka oo geeduhu ka qayb geli doonaan kaana muqadimaadkiisii iyo hordhiciisiibaa hadda muuqda xaaladan taagan oo muslimiinta iyo ka dhex taagan muxuu ahaayey reer bani israa'iil ama yahuudda dhex taagan ayaduna waxay hordhac u tahay taqriiban dagaalkaa uu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalamu caleyh uu sii sheegay kullu dalika iyo kuwo kaleetoo fara badan oo wakhhtiguusan saamaxaynin waxay ka mid yihiin calaamooyinkuu nebigu sheegay sal alla alay waslam markaad aragtaan qiyaamadii waa soo dhowdahay oo qarkay saaran tahay